ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa waxa uu shirgudoomiyay kulan ku qabsoomay habka fogaan aragga internetka kaas oo ay ka qayb galeen madaxda golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda federaalka, dowlad goboleedyada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir. golaha wadatashiga qaran ayaa isku raacay inay kulan Muqdisho isugu yimaadaan khamiis soo socota oo ku beegan 19 bisha Agoosto kaas oo diiradda lagu saari doono diyaar garowga doorashooyinka golaha shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka, raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka ee aan weli soo xaron iyo sidii hore loogu socon lahaa si lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. warar hordhac ee risaale helaysa ayaa waxay sheegayaan in dowlad goboleedyada qaarkood ay dalbadeen in doorashada golaha shacabka hal magaalo lagu soo koobo isla markaana ay culays ku tahay in doorashada golaha shacabka lagu qabto 2 magaalo. waxaana 7 bishii 22 bishii May ee sanadkan wixii ka dambeeyay heshiiskii doorasho ee la galay la'aanba qaaday doorashooyinka aqalka sare. hayeeshee la sheegay in weli markaasi aan la soo saarin habraacyada doorashada golaha shacabka, sidoo kalena dowlad goboleedyada qaarkood ay doonayaan in hal magaalo lagu soo koobo doorashada golaha shacabka maadaama culays dhaqaale mid amni ay keeni karto doorasho 2 magaalo ee golaha shacabka lagu qabto. ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa ku booriyay dowlad goboleedyada inay dardargeliyaan hirgelinta doorashada aqalka sare si looga baaqsado dib dhac loona gaaro jadwalka doorashooyinka ee la soo saaray. dhowr jeel ayaa qadka internetka ee aalada Zoom-ka ee kulan looga hadlayay arrimaha doorashooyinka ku yeesheen golaha wadatashiga qaran ee doorashooyinka kuwaas oo xil saaran qabsoomidda doorasho loo dhan yahay ilaa laga gaarayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya.